قرب على الاستيقان مركة فضل هذا بسم الله الحمد لله قيت يودا بيسي موضوع عن سوودي وها سامين تودا انت مدة تاريخ ذا سوتشرين اسلام كنا سوتشري لان اسلام كنا هذا ما باللابنين الشيعان هذا ما باللابنين دولة هي شأننا هذا وقومه الرئيسه جانبك ولو المسلمين ثم هيري يهوبا يوهاين مثل لقويو يبقون قويو يكو هاين وليقود قلب كاسا وحان ربا قيبتي سيهوري تاريخ ظهراء هايد إن عاو حكة المامو إن شاء الله تعالى هبين دمارو قد بدونا واقع هذا الشيرون أفر ميلاد بان كهالي دونا أفغانستان عراق إيران يا لبنان وحبدا يا وثائق وايها إنك قرصونا نصوب بندق دونا إن شاء الله تعالى هذا سامين تكون يشان تاريخ المسلمين توحان فريا وحان صومرني إن المسلمين تكرا قالوا واركان الصحابة دينا أي قاليين عيل كونوا لقاري عبادة دي نوضان آخران نقا قادن دونا ذنبك يوضان نيدينكا قادن دونا قيامة كهر بان تيلا إذن صون نولايو بان صفية مروض حدودا إذن كوكو قوين دونا سيف تنتاني لدح قانان إيجي نعبي دونا نينكا عيل كان نمانكا هايي hadday dunida xidliyo ay awood iyo dowlad leeyihiin ay soo mareen wixii saaseed sheegayseen fal ma u bedeleen qadiyada way qadiyada aan qaybta dambe inaan kaga hadla rabo jawaabta hadaan kuu soo horumariyana waa haa haddase taariikhda hore haddaan ku dheeraada waxaad dhahaysaan waa taariikh hore inkastoo waayaha taariikhdu waxaan la iloobi karin uu yahay shucuubta iyo ummaduna waxa taariikhda loo aqriyo ninkan mabda'iisu mabda'ii yahay taariikh badanna mabda'an lagu soo jiray inaad ogaato wixii sidan soo rumaysnaan jiray say u dhaqmi jireen isagana sidoo kaleetun baa laga filaa qabyaaladu waa qabyaalad qabiil haddii la isu laayo sidii waagi hore la samayn jirin baa haddana la samay sooma gaal iyo islaam haddii la isu laayo wixii waagi hore dhici jirin baa dhici soomaa ee shiiciyo sunno haddii awood la isu yeesho mabaadiidana halkii la kala joogo dii wixii waagi hore la samayn jirin baa la samay sooma hase ahaatee waan aad baan u soo kookoobi oo waxaan ka sheegi boqolkiiba 2-3 wixii dhacay wixii taariikh hore dhacay boqolkiiba 2 ama 3 baan ka soo qaadan inta kale waan isaga tegi tan beriya habeen dambana haddaan u bato boqolkiiba 10 baan sheegi doonaa waayo waxa kale hak laga sheekay haddii la yiraahdo iyadaa 10 habeen u baahan keligeed horta waxaa la ogaado u baahan waxaa weeye muslimiinta khulafadoodii dadka ay necbaayeen oo gacan u dhintay waxa u horeeyay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda Umar waxaa dilay nin la dhihi jiray Abu Lu'lu'at al-Majusi nin dab caabud oo gaal u ahaa waa kii Umar oo salaada tukanaya subaxii dilay oo min dil laba af leh inta uu geliyay caloosha ku kala gooyay Umar radiyallahu anhu waa dhintay ninkiina waa la soo qabtay Madiina lagu qisaasay lagu dilay Umar markuu yiri warwaaya ninkay dilay waxa la yiri Abu Lu'lu'at al-Majusi way wuxuu yiri alxamdulillah waxa mahad mudan ilaahiga geerideyda aan ku qadarin gacan qof muslima ilaahiga geerideyda aan ku keenin baa mahadsan ninkani wuxuu dilay waa Umar isaguna waa gaal majuusi oo dabcaabo uma ashhaataba imaam iyo nabi maxamed iyo anbiya minna ma rumaysna ninkii sidaas ahaa waa la qadariyaa qabrigiisa ilaa hadda waa la ziyaartaa oo waa la barakaystaa ninkii madiina ku asnaayay Iiraan baa qabri looga dhisay qabrigiisa waa la barakaystaa haddaad internetka gashaade meesha hadda sawir male telefishin hadduu joogo yaallo hadduu telefishin yaallo aan projector aan haysto waad intusiraa qabrigiisa oo la ziyaaranayo la tawaafayo qabrigiisii waa la barakaystaa sababtoo Umar buu dilay koow halyeygii iyo halgamaagii diintaana loo bixiyey kutubtoodoo dhanna baabbaa lagu qora baabu shujaaci diini geesigii diinta sababtoo Umar buu dilay wargaal majuusi ah oo Umar dilay waxa qabrigiisa loo barakaysan way qirsan yihiin gaal majuusi ah inuu ahaa haddana qabrigiisii qabru Abi Lu'lu'at al-Majusi dusha kaga qoranta arkaysa waxaad aragtaa video internetka ka helaysaa isagoo la tawaafayo la sujuudayo la dhukanayo
maxaa intaa uu gaalkii majuusigaa baraka u yeeshay sababtaa cumar buu dilay baabu shijaaci diini geesiga diinta baa waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo alanwaaru nucmaaniya nicmatullahi jazaa'iri uu leeyahay jiska koowaad safxada 108 oo culimmadii dowla safawiya ahaa keeg kaasi waa qodobka labaad dowladdii koowaad ay yeeshaan 286dii bay dhalatay waana dowladdii qaraamitada aan ka soo sheekaynay dowladda dhacdooyinkay geysatay dhowr dhacdo aan soo qaado isla sanadkaas 286 hijriga markay ahayd waxay galeen magaalada hajar la yidhaahdo abu saciid aljanaabi baa hogaaminayey dad badan oo muslimiin ay ku laayeen dumarkii bay kufsadeen xoolihiina way dhaceen arrintaa dhowr jeer bay sameeyeen ilaa 301dii laga gaaro 301dii markuu dhintay abu saciid aljanaabi wiilkiisii abu taahir baa qabsaday sulaymaan la dhihi jiray 311kii isagoo 2700 oo ciidana wata waa kii basla galay dad badan buu ku laayey 18 maalmood buu joogay wixii xooli iyo caruur iyo haween iyo maal uu kari karayna wuu wada kaxaystay dumarkiina wuu adoonsaday waa la kusaday caruurtiina waa la kaxaystay xoolihiina waa la qaatay raggiina waa la laayey 18 maalmood magaalada soo galayna waa basro bartamii muslimiinta ah isla sanadkii ku xigay 312kii xujaydii xajar ka soo noqotay buu dhexda u istaagay wuxuu laayay iyo wuxuu sahaydii ka qaatay dhulkii bahgoyada jasiiradu ka dhigay intii soo hartayna oon iyo gaajo u dhinteen sanadkii ka sii dambeeyay 313kii magaalada kuufuu yimid uu qabsaday dowladda khulaafada cabbaasiya way iska daciiftay 6 maalmood buu joogay dad tobaneeyo kunana wuu ku laayay dumarkiina waa la kufsado waa la kaxaystay caruurtiina waa la kaxaystay xoolihiina waa la rartay waxa sida loo galay waa dadkii muslimiinta laakiin waa ilxaaqu naasi bi ahli alxarbidii wey xoola gaala sidood baa loo qaatay dumarkii gaala sidood baa loo adoonsaday laga tag sanadkii 317kii ahaana maka oo la taagan yahay 8 dilxija oo intii maka laga baxay mina la bariyey oo berri carafa la istaagi rabay soo weerareen 60,000 oo qof bay mina iyo carafa inta u dhaxaysa ku dileen 60,000 oo qof oo xujaya bay halkaa ku dileen xoolihii waa laga boobay dadkii xaramka lagu laayeyna zamzamkaa lagu guray kacbada albaabkeedii baa la fujiyey kacbada albaabkeedu ku ciyaaray seef abu taahir sulaymaan ninkii la dhihi jiray xajar asadkana waa kii 20 sano ilaa 18 sano ilaa 20 sano ay la tageen la maqnaayeen inta aan kaga gaabsaday dowlad qaraamid ay u horeysay istaagtay taa waxaad dhihi kartaan dowlad gaar oo iyagay ahayd wili ma dhacday dowladda muslimiinta ee sunniyiinta nimankan inta la soo dhaweeyey oo la qadariyey oo darajooyin la siiyey oo maamulkii iyo wasiiradii looga magacaabay ma dhacday maxay sameeyeen ila maqal khaliifatu al-Abbaasi ninkaan maqashana waa mu'tasimaah la yiraahdo ninka mu'tasim billahi la dhihi jiray khaliifatu al-Abbaasi nin xoog badan ma ahayn marmar baa magac u baxay midda kale nin uu xoogay nin il dheer ma ahayn nin uu xoogay qaflad badan oo meel ka dhawaan baa meel wax kala wasiir dawliga ra'iisul wasaarihiisu nin shiicu ahaa oo leeyahay ibn al-Alqami ninka la yiraahdo wasiir dawlihiisa ra'iisul wasaaraha ee maamulka dawladda oo dhan isagoo u hooseeya oo wax isaga soo maray waxaan ahayn aanu ninka khaliifada gaaraynin buu ahaa ninka ra'iisul wasaarihi laga dhigay ee ciidanka hoos yimaado ee wasiirada hoos yimaadaan ee booliska hoos yimaado ee dhaqaaluhu hoos yimaado soo ma ahayn inuu cuqdada iska yareeyo nin la qadariyo la karaameeyey soo noqdo ma ahayn ninkaasi wuxuu la xiriiray nimankii mongoliyiinta ee tataarka buu la xiriiray wuxuuna la galay heshiis qarsoon inuu muslimiinta ay Baghdad qabsadaan oo muslimiinta khilaafada ay la wareegaan 3 tallaabo ku tallaabsaday marka koowaad wuxuu sameeyay ciidankii uu kala diray ciidankii dawladdu lahayd xilligaas 100,000 oo ciidan oo heegan ay ahaayeen 10,000 buu ka soo reebay 90,000 buu cayriyay tallaabada labaad wuxuu sameeyay nimankii buu waraaqo u qoray arinta siday u jirto iyo tabardarrada meesha taala iyo intan xataa gacanta isagu inuu ku hayo buu qoraal ugu diray waxaa xiriiriyo u ahaa holaakoo ninkii la dhihi jiray tataarkii mongoliyiinta madaxda ka ahaa waxaa mustashaar la taliyo u ahaa mid iyaga shiicada ah oo Nasiiruddin Tuusi la dhihi jiray
xiriir baa ka dhexeeya marka hoos oo qarsoon ninkan meesha madaxda kaana waa nin wax dhowrofo wax dareema ma ahaba nin muqafal waha